بسم الله الرحمن الرحيم أن وحكبرون ويدينتن What is a credit crunch? Credit crunch وحاسدو كللو يقانا credit squeeze أما credit crisis. marka credit crunch waxaan ku qeexi karnaa waa hoos u dhaca howlaha amaahinta ama deyn bixinta ee hay'adaha maaliyadda sida bangiyada oo kale ay siin jireen macaamiishooda iyo ganacsiyada kala duwan waxaana keenta lacag la'aan ka jirta suuqa ama lacagta ku wareegaysa suuqa oo yaraatay awgeed. Credit crunch waxa ay ka dhalataa daba dheeraanta dhaqaale xumada ka jirta waddanka. Haddaba shirkadaha raba inay lacag deynsadaan ma helaan deyn waayo bangiyada waxa ay ka cabsi qabaan haddii shirkadahaas ay siiyaan deyn in shirkaduhu musallafi doonaan ama aanay ku bixin doonin deynta xilligii loogu talagalay oo marka waxa ay door bidaan in ay yareeyaan lacagta ay deyn ahaanta u bixinayaan inta lagu guda jiro xaaladda credit crunch. Haddaba sara u kaca dulsaarka saaran lacagaha deynta inta lagu guda jiro credit crunch waxa ay keentaa caqabado xitaa dadka ama consumerska rabaan inay badeecado ama adeegyo gataan ma gadan karaan badi oo marka ay macaamiisha gadan waayaan adeegyadii iyo badeecadihii shirkadda ay soo saarayeen midaas ayaa u keenta shirkadaha in hantidoodii ay yaraato maadaama aysan jirin ilo ay ka soo galaan lacag. Haddaba lacagta ama hantida ay haystaan shirkaduhu waxa ay ku bixinayaan sidii ay u sii jiri lahaayeen oo aanay u burburin oo lacagtii kaydka ahayd sida retaining earnings ee loogu talagalay in lagu ballaariyo waxqabadka shirkadda laguna shaqaalaysiiyo dad dheeraada waxaa lacagtaa loo weeciyaa in lagu bixiyo samata bixinta shirkadda inta dhaqaalaha waddanka uu ka hagaagayo. Ogow marka lagu jiro xaaladda credit crunch ama lacag la'aanta hay'adaha maaliyadda sida bangiyada oo kale waxa ay xoogga saaraan in ay bixiyaan deyn ay hubaan in dib loo bixin doono oo waxaa loo wecdaa tayo halkii ay fiirin lahaayeen tirada deynta quality over quantity. Haddaba si looga baxo xaaladdaas bangiga dhexe ee waddanka waxa uu hoos u dhigaa dulsaarka si ay dadka awood ugu helaan inay lacag deynsadaan oo dhaqaalaha waddanka loo dhaqaajiyo. xog dheeraada oo ku saabsan bangiga dhexe retaining earnings sugnaanta deynta guryaha iyo credit score fadlan ka dhegayso lifaaqyada hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo.